رسولك صلى الله عليه وسلم صدقوا إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور صدقوا وحي كبختيسا ضدك قبورها كتيرا كل قبرك كهيستا أيا إلهي كقبوتيا وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته قفك مؤمن كاهي آخر وحو هرسان يا صدقتي سهر كذا رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها أجود الناس ضدك قفك وقود يقضى بدن وكان أجود ما يكون في رمضان مركو وقود يقبضنا رسولك سنة كردن يقضى وابحين شريه مركو وقصي يقبضنا بشهر رمضان بيهيد بولي عبد الله بن عباس حديث كبخاري إلهي وحده سبحانه ويسألونك ماذا ينفقون وحيكو يدينيان محي بحيان محانو بحنابي كسؤاليان قول العفو وحاتر هذا وحي مال باهدين كديرات كأبحية هايسانين ودد بدن وباهم باكرة oo arrimo diin iyo arrimo dunyaba lagu qaban lahaa ayaa jira cataa iyo qataadaba waxay ku fasireen ma fadala an alhaaja wa qofka baahidiisa wixii ka zaa'ida sadaqadu waxay baqtiisaabu nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam tudfi'u alkhati'a kama yudfi'u almaa an-nar sadaqadu sida biyaha marka dabka lagu shubo dabka u baqtiyo ayay qofka dambigiisa sadaqadu u baqtiisaayo ilaahay uga tirtiraa subhanahu wa ta'ala rasuulku sallallahu alayhi wasallam markale wuxuu leeyahay fattaqu an-nar walaw bi shiqqi tamra war naar wax iska xajiya kolay ku tahay timir jeexeedna aad bixiseene maalinta qiyaamah qofku markuu dhinto ilaahay uu hortago subhanahu wa ta'ala waxa dhacaysa qofku inuu midigtiisa eego wuxuu hormarsaday baa ka muuqda bidixdiisu eegaya wuxuu hormarsaday baa ka muuqda hortiisu eegaya masanaar baa soo olkamaysa nacuudu billaah markaasuu waxaa nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam warhooy naar wax iska xajiya intaad nooshiin oo idinaan dhiman wax ka sadaqaysta wax kale hadaa weydaan xabad timira ninkii haysto jeex ka bixi buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam nabigu salawaatullaahi wasalaamu alayhi wuxuu tilmaamay dadka carshiga aakhira harsan doona waxaa ka mid dadka mutasaddiqiinta ah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu dadka carshiga ilaahay aakhira harsan doona waxaa ka mid qof sadaqad intuu bixiyay qarsoodi u bixinaya oo aan cidna ogaanaynin isqarinaya midigtiisu waxa ay bixinayso bidixdiisu kama warqabto nabigu yiri xadiiska saxiixa ee Bukhari uu soo saaray inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab ar-rabb sadaqada qarsoodida ahi ilaahay caradiisay baqtiisa uu nabigu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu alayhi waxaynu xusuusinaynaa walaalayaal waqtiga la joogo maalintaadu waa maalintaad nooshahay maalkaaguna waa maalka maalinta waxaad ka talinayso haddii tii alle kuu timaado maalkaasi wuu kaa wareegayaa gabagabadiiya guntii rasuulka aqalkiisu maalin neef ariya ku qalay markaasaa cadkii la qaybiyey dabeetuu soo noqdo waa u yimi caaisha cadkii maxaa ka haray garab baa ka haray rasuulka ilaahay ama cad baa ka haray intii kale oo dhan waynu haysanaa cadkaa haray mooyaane buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam waxaynu markaas u dardaarmaynaa in aynu ku dadaalno sadaqada iyo deeqda bixinteeda inaynu ku dadaalno yabna aadam anfiq yunfiq illaahu calayk ina aadamo wax bixi ilaahay baa wax ku siinaya waa ballanqaad ilaahay subxaanahu wa tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kusoo dhawaada janaalkayga Fardowso Isku Filan waa mar kale inuu fiideo beliis haddii ay tahay marka kuugu horeyso oo janaalkan soo booqato waxaan kaa codsanaa inaad iskaraab gareyso asxaabtaada kale la sii wadaagto oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan asxaabii soo dhawaada alxamdulilaah ilaah ayay mahadoo dhan u sugnaatay soo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo waxaa rajeynaa idinkana inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan alla subxaanahu watacaala allah caafiyo inta dhimata alla subxaanahu watacaala allah u naxariisto inta safarka allah u fududeeyo qof walba oo muraad lana muraadkiisa alla subxaanahu watacaala allah u sahlo asxaabey maanta waxaan idiin wadaa arrin igaga baranin gabar yar oo maxaa la dhahaa madaxa bura uga taalo oo caawinaad u baahan oo wadanka Masar joogto isbitaalna ku jirto lacag aad iyo aad u badanna laga rabo xagga qaliinka waalid iyo walaal caawinayana aysan jirin oo dad muxsiniin oo Soomaaliyeed ah walba yani wadanka laga keena wadankan soo markaas gabadhaas aad iyo aad maanta caawinaad nooga baahan tahay inaan garab istaagno
marka beliya Soomaaliya aan garab istaagno fiidiyowgan sii share gareeyo qof walbo qofka kale ha sii gaarsiisay gabadhaas maanta ay u hesho qaliinka madaxa uga yaalo barweyna madaxa uga taalo qaliin ay u baahan tahay lacag aad iyo aad u badan yacni waa looga baahan yahay marka shacabka Soomaaliyeed waa shacab iscaawiyo isgarab istaago mar walba oo xaaladahan oo kale iyo kuwa lamid ay jiraan marka maanta waxaa idinka codsanayaa inaad maxaa la dhahaa gabadhaas ilaahay dartiisa aa u caawisaan waxaa ku caawi kartaan labada lambar oo meesha u yaal gabdhaha baayaha oo muxsiniin oo ilaahay dartiisa dadka u caawiyaa iskale marka gabdhahaasaa kala xiriiraysiin waxaana idin ballan qaadaa wax alle wixii aa gabdhahaas aa u dirtaan insha allahu tacaala inay gabadha gacanteeda ku sallimi doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo waa gabdha in badan sadaqada ka shaqeynaya waddanka Masar marka ilaahay ha idin barakeeyo qof walba oo xoolihiisa sadaqaysta ilaahay subxaanahu watacaala waxaa weydiinaa meeshuu ka bixiyey in ka badan inuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu soo bedelo hadday ilmo ka xanuunsan yihiin inuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu caafiyo haddii ayada qofka xanuunsan tahay inuu caafimaad sariica ilaahay subxaanahu watacaala siiyo haddii walwal iyo murugo kale ay haysato xag caruur ha ka haysato xag faamil ha ka haysato xag kale ha ka haysato wax walboo haysto ilaahay subxaanahu watacaala allah ha ka dulqaado ilaahay subxaanahu watacaalana ha idin barakeeyo fiidiyowgan qofkii aanan dhaqaalo ku caawin karin walaalayaal u sii sheer gareeya meel walba group walba ku jirtiin meel walba ugu sii sheer gareeya sidii gabadhaas yar waa 18 years old waa ilmo yar waxay u baahan tahay maanta caawinaad ilaahay xaggiisa caawinaad uga baahan tahay laakiin idinka Soomaaliyana way idin baahan tahay marka beliya Soomaaliya aan garab istaagno aan caawino maxaa la dhahaa aan ku caawino inaan sii sheer gareyno maxaa la dhahaa aan ku caawino wix alle iyo wixii ilaahina siiyey maanta waxaad baxsatid beriyaad helaysaa marka wixii maxaa la dhahaa maanta aad awoodid $1 Allah ka dhigo $5 Allah ka dhigo $10 Allah ka dhigo $2 Allah ka dhigo $100 Allah ka dhigo wax alle wixii aa awoodid gabadhaas masaakiinta oo yar ha lagu sadaqaysto hana lagu caawiyo qofka caawinaad dhaqaale awoon ha u duceeyo qaybka ha ugu duceeyo hana u sii sheer gareeyo fiidiyowgaas waa mahadsantihiin aad iyo aad aan idinkugu mahad celinayaa جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى هايدن بركايو أذنك إيو حوليين إيو أبدكين دمان إنتان أبد كيسن إلهي سبحانه وتعالى وحويدين أبد باريين وطيبين وقرة العين إلهي سبحانه وتعالى كإرزاقه وأنا مهتسنتين أنا كان إيسو دعاية مال ما هو يرحنون سناي إنه إلهي سبحانه وتعالى عافي ما دسيو توكد هراء إذا كعدسون دعاء وإيسو دعايسين إلهي ويقو عافية سيد هراء هذا وقفي عنها إن شاء الله تعالى إنت إيدي من الله سبحانه وتعالى الله يدمسترو وما تسنتين عيد الله سود وهذا بليس مركلة waxaan idinka codsanaa fiidiyowgan meel dheer gaarsiisaan sidee gabadhaas qaliinkeeda ee u hesho insha Allah taala. Assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh.